الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم من نفسي بتقوى الله تعالى. walaalayyaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii cibaadada shahru ramadaan. cibaadadaasi waxay u baahan tahay inay dareen iyo dhadhan iyo macaan inoo samayso noocyadeeda kala duwan. mowduuca maanta aynu ka hadlaynaa waxa weeye ladatu lcibaada, inaynu daydayno baadi doonno aynu dareenno dhadhanka ay leedahay cibaadadu. taana waxaynu isugu waaninaynaa waa casharo inagu yar oo inta ilaahay uu siiye aanay badnayn, hamiga kale ee faraha badanaya iyo howlaha kale aynu ina haysto daraaddeed. shayga loo yaqaano dawqulcibaada, cibaadada dhadhankeedu sida uu u yaalla iyo waxyaabaha lagu hela iyo waxyaabaha diida iyo dadkii saalixiintaas siday u heli jireen ayaynu wax ka odhan doonaa. waxaa lagu helaa mujaahadatu nafsi cala alcibaadati wa tacwiidiha maca atadaruji fii dalik. wax walba waa la bartaa. inaad qof qaafilahoo sii jeedan noqoto waad baran kartaa, inaad qof soo jeedan noqoto oo cibaadada macaankeeda naftiisa ku carbiyana waad baran kartaa. maalinba inbaa kuu kordhi karta. sidaa daraaddeed baa macnaha ay xambaarsantahay aayadda aynu akhrinay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii aakhiri suurati alcankabuut. waxa uu leeyahy waladiina jaahaduu fiina, kuwa daraadaya u jihaadaya. mujaahadada ugu horeysa waa dagaalka nafta uu qofku la gelayo xoraynayo. lanahdiyannahum subulana, wadooyinka iyaga khayr kale baanu ku hanuuninaa oo ay u horeyso dhadhanka cibaadadu. wa ina allaha la maca almuxsiniin. waxaa ka mid ah alikhaaru min annawaafil waltanwiicu fiiha cala ikhtilaafi sifaatiha wa axwaaliha. qofku inuu ku dadaalo cibaadada sunnaha inuu badsado. cibaadada wala faraliba waxay leedahay sunno la socda. sunnaha inuu kordhiyo waxa uu ku heli karaa dhadhanka cibaadada iyo macaankiisa. xadiid alqudsi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu kasoo warinayaa. rabbi waxa uu leeyahy wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba. addoonkaygu wuxuu igu soo dhowaado faralkaan ugu jecelahay buu lahay oo ugu fadli badan. mar kastuu sunnayaasha badiyana oo uu sii badiyana waan jeclaanayaabaa ilaahay wy. jacaylka ilaahay uu ina jeclaadaana waa waxaynu baadi doonayno inuu cibaadaysanayno. markaasaa ilaahay xubnihiisao dhan ilaalinaya. heerkaa marka uu gaadho waa marka cibaadadu u dhadhamayso. cibaadadu waxyaabaha inoogu dhadhamaysa waxaa ka mid a alta'amulu fii siyari saalixiin. dadka wanaagsan iyo dhaqankooda inaynu eegno si aynu ugu dayanno. waxa uu lahaa imaamka la odhan jiray jacfar ibnu sulaymaan, kuntu idaa wajadtu min qalbii qaswatan gadowtu fanadartu ilaa wajhi muxamed ibni waasic fakaannahu wajhu hukla. qalbigayga markaan ka yaro dareemo xoogaa qallafsanaana, raggii ugu wanaagsanaa cibaadada badnaa mid ka mida baan u tegi jiray maxamed ibnu waasic. kolkaasaan sidaa wejigiisa u eegi jiray. wuxuu wejigiisu u muuqday ruux dumar ahoo goblantay wejigeedoo kale. waa weji aan kariim la marin, subag la marinin, habeenkii biyaha qabow sida loo marinayo jidhfa yeeshay. sidaa daraaddeed waan ku cibro qaadan jiray. cabdillaahi mubaarak waxa uu lahaa idaa nadartu ilaa fudayl bna cayaad judida lii alxusn wamaqadtu nafsi uma kaana yabki. fudayl ibna cayaad oo cibaadada caan ku ahaa markaan u tago ee aan eego xusnigaa iisii kordhi jiray iyo cabsida iyo warwarka aan camalkayga iyo aakhiro ka qabo. kolkaasaa naftayda canaanan jiray. dadka qaarkoodna dee waxaa laga yaabaa inay adduunyo ku xusuusiyaan iyo arrimo kulkulul. dadka qaarkoodna ilaahay iyo aakhiro iyo diin iyo cibaado iyo wanaag aad ku xusuusato cabsiga kuu korodho. waxyaabaha kordhiya waxaa ka mid ah ama keena macaanka cibaadada qiraa'atu lqur'aani wa tadabburu macaaniih waalwuquufu cinda cajaa'ibih. in kalaamka ilaahay la akhriyo oo si gaara loo akhriyo. sida gaare loo akhriyaa waxa wey inaad ilaahay dhegaysanayso ood hadalkiisa dhadhaminayso oo siduu kuula hadlayo aad iyo aad u maqlayso aad u soo jeedo.
وشفاء القلوب وجلاء الأحزان وترقيق القلوب وحول أردبه قلبك هيستبع إلى هاي سجوك جد وينيا وحد أخريس أهل الجنة حال هذا أهل النار كي أحواش هذا وحكم ذا وحيابها قلبك الدبعياء الخلو بالله سبحانه إنه أضونك إلهي لقوني نقض حال ذا قاركود siduu jecel yahay dadka ay isjecel yihiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xaaladaha qaar kood inuu la gooni noqdo oo la dal